kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba daawadayaal kusoo dhawaada TV-ga Soomaalida Holland gaar ahaan magaalada Amsterdam waxa aan waraysi gaar ah la yeelan doonaa mid ka mid ah aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee degan magaalada Amsterdam oo Maxamed Cabdi Yuusuf TV-ga Soomaalida ee Holland. Maxamed in badan waxaad degan tahay waddanka Holland bal waxaad nooga sheekaysaa xaaladda Soomaalida ee waddanka Holland. haddaan ka warramo xaaladda Soomaalida degan waddanka Holland waxaanu taariikhda ka soo bilaabaynaa markii waddanku burburka ka dhacay Soomaaliya sagaashameydii horaanteedii 1990 iyo wixii ka dambeeyay Soomaalida waqtigaas ay xoog usoo galeen waddankii dagaaladii dhacay halkan soo wada galeen dad adigu ilaa lagu qiyaasay 30,000-40,000 ayaa yimid oo aada isu degay halkanay degeen qaarkood shaqay ka raadsadeen way ciyaalkooda iskuulley galeen muddo markii la joogay adigu xawaali 10 sano ku dhawaad dhammaadkii sagaashameeyada dadkii Soomaalida ahaa ee faraha badnaa waxay bilaabeen inay waddankii ka guuraan oo markay qaateen inta badan dhalashada waddanka waxayna u guureen xoogooda meelo badan waa loo guuray laakiin xoogooda waxay u guureen waddankan dariska annaga Ingiriiska ayaa loo guuray dad fara badan baa guuray adiga hadda ilaa 20,000 30,000 ku dhawaad waa guureen oo aadaan loola yaabay waddanka Netherland Soomaalida dad oo ajnabi ah oo maaragtay xawliga ku guuray waa la yaabanaa laakiin markii Soomaalida la weydiinay waxay dhaheen caqabado fara badan oo waddankan ka jiray ayaa ku kalifay inay maaragtay ay guuraan caqabadahaas waxaa ka mid ah xagga shaqooyinka muxuu ahay dadkii waqtigaa yimid waxaan dad Soomaali ka soo shaqeeyay wax ku soo bartay aqoon leh oo shahaadooyin iyo wax watay waxay filayeen in macnaha ay shahaadooyinkoodii iyo waxoodii wax uun loo tixgelin doono oo maarkino ay meel un ka bilaabi doonaan laakiin waxba lagama soo qaadanino waxaa la yidhi dib usoo bilow ama maarkino hadda iyo wax cusub iyadoo luqadina ay tahay luqad dadkaasu Ingiliishka yaqaaneen luqadii waa luqad Dutch ah waa dhibkeeda leedahay muxuu ahay adigii qof weyn oo haddana dib wax soo bara lagu yidhi haddana ma keeni kartid marka way fakireen waxay saankooda waxay ku arkeen in Ingiriiska uu yahay kow waddan adduunkaas oo dhan caalamka oo dhan gumaysto meel walba tegay uu ka furfuran yahay muxuu ahay luqadana ay markiiba ay la qabsan karaan caqabadaha inta ka jira oo xagga shaqooyinka iyo waxaas iyo waxbarashada aysan ma jirin marka arrimahaas markay ay fiiriyeen dadkii waxay bilaabeen xoog inay u baxaan marka dafcad kala jirtay oo timid 2006 wixii laga bilaabay wixii ka dambeeyay dafcadaas way wada dhamaadeen ama xoogoodu waa baxeen kuwii hore kuwan dambe markay iyagana yimaadeen oo waxay ku yimaadeen iyaguna nidaam kale oo qaxootinimo macnaha in qofka markuu yimaado hore sharci laga siinayay markii reerkiisu keensanay ciyaalkiisii ayagana markii ay baasaboorkii wixii heleen iyaguna waa baxeen oo laakiin dufcadan dambe iyo kuwaas la isuma barbardhigi karo kuwaas kale xogaa waxaa moodaa dad waddanka ka soo shaqeeyey oo ka aqoon badan iyo kuwaana dad kaloo dhalinyaro oo waddanka aan wax badan kasoo qabanin ay ahaayeen laakiin iyaga naftooda kolley caqabada ugu weyn waxay ahayd xagga shaqooyinka iyo luqadda iyo waxyaabahaas ayay igana ku baxeen inta badan oo ilaa hadday baxaanba laakiin dad kale ayaa waddanka nala degan oo naga soo horreeyey sida Marookaanka iyo Turkida oo dadkii lagu keenay inay shaqaale ahaan halkan loo keenay 60-70 dadkaa ma guurin maxaa Soomaalida guurin marka dadka iyo Soomaalida maxaa u dhaxeeya farqiga u dhaxeeya marka maxay noqonaya marka taasaa u baahan in laga jawaabo sababtoo ah dadkan caqabadahan aan Soomaalida la kulantay kuwan waa naga horreeyeen iyagaba way la kulmeen oo weli waqtigaa iyaga ay imaanayeen waaba kasii adkeed waa kasii dhib badneed waa kasii xumad maxaa keenay inay iyaga guurin oo ay ku adkaysteen oo macnaha ay ilaa hadda 3 jiil ay sii marayaan oo ilmahoodii kuwii ay sii dhaleen iyo kuwii kalaasi ayaa la marayaa way jirtay dhibaataas way arkeen inay jirtay laakiin waxay ku xisaabtameen anigii saa isirin qoladii waqtigaas timid
waalidiintii waxay ku xisaabtamaan anigu dhibka aan hagu dhaco laakiin ilmaha inta ku dhashay ama ku koray waxa waaye systemku la qabsan doonaa systemku sii dhexgeli doonaa hadhow saa wax ka keeni doonaa ani waxba kama keenayo hadda waxba kama keenayo mana la guurayo laakiin kuwa kawaas wax ka keenay waana caddo hadda aragtay oo Mareykanka iyo Turkida waddankan xoog bay u dhex galeen shaqooyin badan ay ku haystaan ganacsiyo badan ay ku haystaan way ka muuqdaan ma laga yaabaa Soomaalidu arrintan ay u guurayso inay tahay arrin la xiriirta reer guuraanimada Soomaaliyeed ee lagu yaqaanay weligeedba waxaa moodaa waa runta oo hadda anigu naftii dad badan oo hadda guurguuray oo xataa Ingiriiska waa tagaan waa arkay waan waraystay mararka qaarkood dadku isku ma ahan qofba sabab ay u guuri karaan laakiin inta badan waxaa arkaysaa in macnaha ay taasna la xiriirto tan reer guuraanimada oo ah reer guuraaga waa aragtay markii abaar dhacda ama wax dhacaan in meel roob ku da'o naq laga soo sheego oo meeshaas la aado qoladii baxday ayaa waxaa la maqlayaa halkaas wax laga helay waxaa dhici karta kuwii dambe oo ka daba tegay meeshii inuu iyadu hataa ay markii dambe khalasho waxaad iminka ii sheegtay in qoomiyadda ama Turkida ama Mareykaanta in ay waddanka iyagu in muddo ay degan yihiin oo muddo fara badan ay degan yihiin oo aynay la qabsadeen weliba ay dee weliba ku haystaan businessyo xagga dhanka dhaqaalaha ama dhanka siyaasadda lafteeda ay boosas waaweyn ka haystaan bal arrinta Soomaalida iyaga laftooda Soomaalida iyo bal maxay iyagu ma la qabsadeen Soomaalidu kule anigu waxay ila tahay haddii dadkaas waqtigaas laga soo horreeyey ay ku samreen kuwii ugu horreeyeen waa Mareykaantii Turkida waan garanayaa way ku samreen odayaashii hore yimid dad oo waxay baadiyo laga keenay aqoon ma lahayn ma fahmino xataa luqadda Soomaalida timid inta waddan ka soo tag dad shaqeeyay waxay ahayn aqoon leh kaas marka laakiin wuxuu dareensanaa caqabadaha wuu arkayay laakiin wuxuu dareensanaa in isaga uu ku jiro laakiin ilmihiisa iyo kuwii dhaleen inay ka bixi doonaan laakiin annaga kuwii ugu horreeyay meesha yimaaday waxaa dareemaysaa isaga inuu iska fikiray oo uu yidhi aniga shaqo la'aan ay igu haysa muxuu ahay cunsuriyada jirta caqabada ay haysta waan ka baxaya laakiin kama fakirin adiga ku adkayso kuwan aan dhashay kuwii si dhalaan maaragtay way ka gudbayaan sababta kuwaas waddankii la qabsanayaan luqadii yaqaanaan sida dadkan oo kale laakiin generationka ugu horreeyay halka yimid waa guureen Soomaalidii marka hadda marka xaggeen taaganahay waa Soomaali badan way joogtaa hadda ilaa 40,000 waa lagu qiyaasaa laakiin markaan fiiriyo xoogaa waddanka ka muuqdaan businesskii iyo siyaasaddii markaa fursadahaas weli ma jiraan mise waa fursado aan weli aanay Soomaalidu aan weli aanay hayn fiiri marka meel la yimaado annagoo qoomiyadaan ahayn Soomaali qoomiyado kala deganaa waddankan oo ajnabi oo yimid waxay ahayd in aan fiirino sidee dadka caqabadahaas annaga hadda aan la kulannay iyagaba way la kulmeen see uga gudbeen ma isweydiinin laysma weydiinin dhibkaana ay haysta waa iska baxday soo maha marka waxaana waxay ahayd in Soomaalidu ku adkaystaan meeshaan wax kastaa dhacaan jiilba jiilka ka dambe ayuu ka bixi lahaa marka hadda waxaa su-aasha ay weydiisay oo ah muxuu ahay dhankii ama businessyadii ama dhaqaalihii ama siyaasaddii ama waxyaabihii kale soo maha siday ku yihiin ma ka muuqdaan waddanka aniguse ila taha kama muuqdaan oo marka aan isu barbar dhigno dadkaas kale Turkida iyo Mareykaanka iyo dad kale oo kala fara badanaa jira may tusaale Amsterdam oo kale bal iyaga ma jiraan waxyaalaha inay ama siyaasadda galaan ama dowladda sare ay galaan reer Amsterdam anaa hadda 20 sano degan Amsterdam ma arag qof Soomaali oo hadda macnaha waxaa laga fiiriyaa Amsterdam waa caasimadda waddanka marka caasimadda laga soo tagana magaalada waxaa xukuma muxuu ahay duqa magaalada waxay leedahay muxuu ahay dowladdii hoose waxay leedahay golihii deegaanka wixii Soomaali waxaas oo dhan ay leedahay intaasoo sano intii ka horreysaba anigu ma arag qof Soomaali oo ku jira meel laakiin waa arkaysaa markaad tagtid Mareykaanka iyo Turkida aad ugu jira xataa xaafaday xukuma xaafadan hadda aan joogno waxaa loo yiraahdaa New West
yaa xukuma ninka xukuma xaafadan dhan oo 4 xaafadood oo laysku darac ayaa waa oo ilaa iyo hadda 15 sano waxaa xukumayay Moroccan markii ugu horreeyay waxaa xukumi jiray nin Markuush la dhihi jiray Axmed Baaduud baa ka dambeeyey haddana kolley nin kale oo Moroccan ah jooga laakiin sida aan ku aragno ama Soomaalida kale ee wadannada jaarka ah degan waxaa jira in hadii jira wadannada kale ay degan yihiin inay siyaasadda positionno muuqda oo sare ay ka gaadhaan maxaa markaa Soomaalida gobollada wadannada kala degan iyo Soomaalida halka degan farqiga u dhexeeya maxaa noqon karaa wuxuu noqon karaa Mareykanka ka soo qaadanayna oo hadda ay ka soo baxeen oo kale Congress-kaba ay gashay oo qofkii muslima ugu horreeyay ay noqotayba muslim oo dhanba saa u malaynayo Ilhaan Cumar gabadhan Ilhaan waxay deganayd magaalo la yiraahdo gobolka Minnesota Minneapolis meelahaas ay degan tahay meeshaasna waa meesha ugu badan Soomaalida ugu badan ay degan yihiin waddanka Mareykanka walow ay meelo badan degan yihiin marka dadkaas meesha degan la keenay ilaa iyo 90 burburku dhacay iyada nafteeda ka mid ah xiriirka xogta laga soo qaaday Ilhaan iyo dadkaas Mareykanka waa degan yihiin sida inta dadkeena ma guuren ma aysan guuren Mareykanka degan yihiin waa ka shaqaystaan ganacsiga kulliyiin waxbay ka bartaan waxay ku khasbanaadeen in meel ay uga socdaan ma jirteen waa inay systemka galaan oo macnaha hadhow dadku cunsuriyad waxbay ay baartay ka qayliyaan cunsuriyadda maxaa keenaya dad waa inay meesha kugu jiraan taasay iska dhaadhiciyeen way dagaalameen si sahla laguma helin gabadhaasaa la soo saaray hadda waxaa ka dambeeyey dad badanaa soo baxay gabar kale oo waxaa maqlaya Portland meel la dhaho ka noqotay mayor gabar Ibrahim dhalac la yiraahdo way jirtaa magaalada iyada ay ka soo baxday ku dhalinyaro badanaa ka soo baxay hadda oo wada galay Canada kale markaan ka soo qaadano nin wasiira jira oo isaga qaxooti ahaan ku tagay meeshaas oo wasiirka macnaha waxbarashada hadda kahorna ah wasiirka guryaha iyo waxaas ahaa maxaa keenaya wadda degan oo meel kale uma socda marka dadku markuu degan yahay wuxuu ku khasbaya meesha inuu wax ka qabso laakiin adiga berri markaa ku fikiraysa ama 5 sano kadib baadaan baasaboor loo iska baxa lugna intay kugu jirtaa lug kalena waxa waaye meel kale ay kugu jirtaa marka waxa waaye bini aadamkuna muxuu ahaay qalbigiisu laba meel uma qaybsano waa si wanaagsan waa gartay kulley laakiin dhalinyarta waddankan ku koray ama ku dhashay muddo badan oo waddankan deganaa ama sida doonaan baa ku yimaadaan la qabsaday waddanka iyagu maxaa u jiday inay soo gaadhaan positionadan xagga dhanka siyaasadda ama xagga dhaqaalaha inay guulo waaweyn ka gaadhaan maxaa u jiidan taas waxaa u diidaya iska caddahay waxaa u diidaya waxa waa jiraan dhalinyaro badan oo Soomaali wax bartay oo aqoon leh oo maanta meelo waaweyn gaari kara aan soo qaadanoo kale hadda magaalada Rotterdam waa magaalada labaad ee waddankan ugu weyn dekada labaad ee Yurub ugu weyn ugu dhaqdhaqaaqa badan ee ku taal waxa ay ka ah maayarka Axmed Abu Talib Nildo magaalada Arnhem waxaa ka ah nin kale Axmed Markuush labaduba waa Moroccan nimanka Amsterdam ay joogi jireen halkan ay ka soo baxeen waddo badan waddo dheer ay qaadeen halkaas maanta taagan qofka Soomaaliga maxaa u diiday inuu iyagoo kala noqdo base buu ma haysto qofka Soomaaliga adiga siyaasadda markaa gelayso meeshaas rabta aad gaartid waa inaad base leedahay saldhigii aan leedahay laakiin qof keligiis oo iska socdo oo aqoon aan bartay waxaan bartay waa laga yaabaa xafiis iyo meel weyn inaad ka shaqayso mushaar fiican ka qaad laakiin halkaas markaa gaaraysid waa in community ummad kaa dambaysa iyo base aad leedahay haddaadan lahayn ma gaari kartid si kastoo karti aa u leedahay waxaa inagu maqaalaa in wadannada jaarka oo kale inay carruurtu jeelasha iyo xabsiyada ay ka buuxaan gaar ahaan Soomaalida halkan laakiin ay ka duwan tahay bal markaa iyada lafteeda maxaa ka jira arrintaa halkan waxay uga duwan tahay wadamadaas oo kale hadda markaa fiirso Soomaalida ilmahooda xabsiga galaan oo waxaas inta waxay uga duwan tahay meeshaas waxaa jira systemka waddankan uu ku shaqeeyo oo Netherland oo ayaa ah system oo haddii xaafadaha hadda ajnabiga ku badan yihiin oo kale aan soo qaadan annaga waana kaga badan hadda xaafadan westiga oo kale Maroccaanka iyo Turkiga ku badan yihiin dhinacan South Ostiga Balmer ay ku badan yihiin madowga waa jiraan ilmo laga yaabo inay xabsiyo galaan
ama ay waddada ka leexdaan. laakiin waxaa jira waddankanu ilmihii waaba lala socdaaba cunugii waddada ka leexanayaba dowladda hoose waxaa jira sistema ay dejisaa jira markii la arko cunugii inuu maarkino uu iskuulkii tegaynin inuu macnaha dariiqyada wareegayo waxyaabo kale ka daba wareegayo markii booliiska ay qabtaan ama dembi uu galo oo reerkii waa lala socodsiinaya hadduu ku noqdo kusoo noqdo ilmahaas waxaa jira system way calaamadaynayaan marka waxaa jira marka nidaam degsan oo ay ugu talagaleen muxuu ahaay bulshada ama communityga ilmahaas oo kale marka calaamaday saarayaan waxay leeyihin cunugaas wuxuu ku socdaa waddo khatar ah waddadaas marka brogramaa jira brograami ayaa la gelinaya marka reerkiisa waa lala socodsiinaya suusan halkaa u aadin waxaa la gelinayaa system kale oo uga leexda waddadaas oo uusan xabsi ku tegin marka waa nidaam iyaga ay dejiyeen ayaa jirta oo macnaha waalidkiina waa lala xiriirayaa muxuu ahaay iskuulkiisi waa lala xiriirayaa xaafadiisa muxuu ahaay booliiska joogay iyo qolyihii kaloo ka shaqeynaya waa lala xiriirayaa waxaasoo dhan maaragtay waa lala soconayaa oo inta uusan dhibka ku dhicinba ayaa leeyahay cunugaa khatar ku jiraa marka waa nidaam iyaga ay sameeyana jiraan kaasaa wuxuu keenayaa marka in badanaa ay xabsiga ay ka baaqdaan waayadii hore ciyaalka markaanka aada u geli jira hadda iyaga naftooda xataa kuma badna oo waxaa la xoojiyey communitygii wada shaqayntiisii booliiskii iyo muxuu ahaay dowladda hoose iyo cadaaladda justiceki systemkaas ay korka ilaalinaya waa tahay si guud waa kula fahmay inaanay la mid ahayn waddanada deriska ah laakiin markasta way jiri kartaa kulley cunsuriyadda iyo dee xuquuqu markasta way jiri kartaa bal waxaad iga warantaa roolkii ay ku lahaayeen jaaliyadaha soomaaliyeed ee waddanka degan iyo dhalinyartu siday isugu xidhmi lahaayeen horta jaaliyada fara badanaa waddanka ka jira anu hadda amsterdam aan garanaya waddankunu jaaliyada fara badanaa jira jaaliyadda ugu weyneed oo amsterdam weligeed ka shaqeyn jirtay markaan waxay ahayd sanfo jaaliyada loo oo waagi dambe inta la xirantay haddana hadda ilaa hadda shaqaysa laakiin magac kale ku shaqaysa runtii shaqooyin badan way qabatay muxuu ahay oo xagga bulshada oo nooc walba oo ama dhalinyaro ha noqoto ama dad waaweyn ha noqoto ama dumar ha noqoto laakiin waxyaabaha arrimahaas in dhalinyarada wax loo qabto waxa weye waxay u baahan tahay in jaaliyaddii iyo dowladdiiba ay iskaashtaan oo macnaha jaaliyadda keligeed wax ma qaban karto haddii la rabo dhalinyarada qaarkood oo u baahan ama waxbarashadoo kale laga saacido kale iskuulkii oo luqadii oo kale waalidkii oo kale luqadii kulliit waxyaaba noocaas oo kale waxay u baahan tahay communitygii iyo muxuu ahay iyo dowladdiiba in la wada shaqeeyo waa jiraan laakiin in la raadiyo taana waxaa moodaa xoogaa in soomaalida gaabis ka tahay muxuu ahay carruurta yaryaroo qur-aanka loo dhigo iyo soomaaliga wax yaryar loo dhigo iyaduba iska kooban wax badan ba aan ahayn laakiin marka intaa laga tago dee ciyaalku kuwa waxaa jira waa kala da-wan yihiin kuwa waxaa jira dugsiga hoose iyo yaryar oo qur-aanka iyo af soomaaliga loo dhigaayo kuwa waxaa jira 12 jiro ah oo second dugsiga sare ka baxaya oo u baahan waxyaabo kale oo beri inay galaan muxuu ahay jaamacad iyo meelo waaweyn sii tigsan lahaa oo iyaga naftoodii waxyaabo badan ku liita oo u baahan iyaga naftooda in laga caawiyo badanaa ma aragani kuwaas waaweyn oo heerkaas u gudbi lahaa ama xisaab ha laga caawiyo ama muxuu ahay juqraafiya ama muxuu ahay science ama wax kale ma arag meelo loogu dhigo laakiin markaa aragta qolyahan kale oo marokaanta iyo turkida ciyaalkaas oo waaweyn oo ilaa dugsiyada sare iyo ka baxay ilaa jaamacadaha gaaraya waxay leeyihiin meelo wax loogu dhigo macallimiin aqoontooda sarreysa u yimaadaanoo wax ugu dhigaan way jiraan laakiin annaga badanaa waxaa arkaysaa meelo badan waxaad arkaysaa ku yaryar bes ayaa wax loo dhigaa yaryariska laakiin kuwii waaweyn kan markuu weynaado wuxuu u baahan yahay isaga naftiisa waalidkii hadduusan aqoon lahayn ma caawini karo waa in meel kale laga caawiya waxaa jira waalidiin badan oo ayagu laftooda aan luuqada nederlaanka ku hadal ama aan inta badan fahmin oo caqabad weyne ka haysato xagga luuqadda ayayna
carruurta yarada dhalan isfahmaan ma jirtaa ama community ka caawiya ama carruurta iyo bulshada cid isku xidha waalidka iyo bulshada ma jirtaa meelo gaar oo isku xidhi karaa ma jiraa waddanka ka jaaliyad ahaan annaga meelo noocaasoo ma qabno laakiin waddanka ayaa wuxuu qabaa ilan waalidiintu waa la ogyahay soomaalida keliya maaha in macnaha waalidku ajnabiga qaar badan afka aysan aqoonin ilmahana aysan ka caawini karin waxbarashada taasu maaha annaga wax keliya noo gaara laakiin waxaa jira in waddanku dowladaha hoose ee dadku magaalooyinkay degan yihiin nidaamaa jira waxyaabaa jira wax la dhaho buurta house oo dadka laga caawiyo haddii waalidka naftiisii haddii halkaas la geeyo oo dhibkiisa sheegto oo macnaha waa laga caawinaya nidaamkaas waa jira oo laga caawin lahaa laakiin dadkii ayaan raadsanaynin caawinaadda ama aqoon darra ha ku noqoto ama jaaliyad ka caawista in waxyaabahaas ay jiraan ama lala doono way maqantaha taasaa maqan marka qofka gurigu iska fadhiyaa cunugii iskuulku tagaa lama ogo inuu wax fiican bartay markuu weynaadana kadib waxaa laga yaabaa in la dhaho cunugan iskuulkaas ma aadi karo ama meeshaas ma gaari karo maxaa soo baxaysa marka waxa weeye markaas waa leyd in cunugii meelihii sare iyo jaamacadihii iyo hooq iskoolkii wixii aan dhehayna uusan tegi karin taana markaa ay keento inuu meel dhexe ku haro oo markinu xoogsato iska noqdo kuma soo koobi karna hal barnaamij oo keliya arrimaha bulshada soomaalida laakiin bal maxaad isleedahay mustaqbalka soomaalida waddankan degan ama imika waxaa jira meelihii loo guuriyana waa soo xirmeeno ingiriiska oo kale de waa tan imika dad badan oo soomaali markii brexitku dhaco kale oo kuwan dib u soo noqonaya maxaad isleedahay qofka soomaaliga ee maanta waddankan doonayo inuu dib ugu sii noolaado ama ku noolaado maxaad isleedahay taladaad siinaysa maxay saa hore u sheegay annaga waddankaaba nagaga soo horreeyey dad kalea nagaga soo horreeyo saan kuu sheegay moroccan iyo turkiya iyagoo muslim ah oo waddamo qaxooti maahayn laakiin shaqo lagu keenay muxuu ahaa dadkaas way ku adkaysteen way ogaayeen in macnaha caqabada ay la kulmaayeen wax walba ay la kulmaayeen waxaadna ogaataa bulsho inay iyo dad iyo ama shaksi ama bulsho inay horumar gaarto sahal ma aha dhib badanaa ka horreeya dhibkaasna waa in loo adkaysta waayo macnaha muxuu ahay dhibka waxaa ka dambeeya dheefaan dhahnaa koofur marka wixii hadda baxay waa baxeen mafaham marka laakiin waxa jooga iyo waxa ka dambeeya imaan doona anuu soomaalida hal talaan siinaya meeshaa ku qoysatid waa lagu qalajistaa haddaa halkaan imaaday ma sahlana cunsuryadaa jirta dhibaataa jirta caqabadaa jira wax badanaa jira dhib fara badanaa jira ku adkayso meeshaada joog orodkan badanna wax laguma keenayo haddaan dhahna xataa dadkii baxay naga tegay waa ingiriiska xoog loo aaday haddaan fiirana xataa dad guulo ka keenay hadda oo aan dhihi karno dad shaqaysta waa maqalnaa oo siday doonaan ku shaqaystaan laakiin dad meel weyn ka galay dowladda ingiriiska iyo muxuu ahay ma haysaa ma hayn ila meesha markaad tagtay waa inaa aad meel furfuran oo meeshaan ka fiicanaad tagtay meelo ma gashay oo macnaha meelo weyn ma kasoo muuqatay siyaasaddii wax walba ma jiraan marka aniga waxaan dareemayaa wax isbeddel ah oo dadku ay sameeyeen meesha ma jirto soomaalida hadday rabaan waddanka nadara inay guul ka gaaraan ama ay ka rabaan ingiriiska oo kale ay guul ka gaaraan ama waddamada kale oo hadda aada u degiyen sweden ilaa maraykan ilaa canada hal miday ay ku gaari karaan guul markaa aniga fiiriyey iyo waa aragnimadeydii markaan kaashto waxay guul ku gaari karaan communityga soomaalida oo isku xiran oo isku duuban oo hal ujeedo iyo hal aragti leh ayay guul ku gaari karaan haddaan doonno 100 kuna halkaan ku deganaan karnaa haddayna isku xirnayn isku duubnayn
siyaasadda waddankana aragti midaysan aynaan ka lahayn dhinaca muxuu caafimaadka dhinaca muxuu ahay waxbarashada dhinaca siyaasadda haddayna aragti midaysan ka lahayn iyo waxaan doonayno ma gaarayno 1 milyan oo qof oo soomaali halkan waa deganaan kartaa guushaas ma gaarayso waa tahay maxamed arrimaha soomaalida kuma soo koobi karno hal barnaamij ama mid iyo laba waanad mahadsan tahay waqtiga aad siisay galabta waana ku mahad celinaya waa tahay daawadayaal waxaa intaa inoogu eeg barnaamij aan ku wareysanayay maxamed cabdi yuusuf abuna oo aan ka wareysanayay xaaladda soomaalida ee waddanka Holland inta aan ku kulmi doono barnaamijkan lamid waxaan kaga tegayaa sidaas iyo